الله كرامي بوغان qaybtiisa daabacaadiisa labaad Nairobi dadkii akhriyay baan ku jiray intaan la daabacin runtii saddex eeriyo ama saddex qaybood oo runtii muhiim ah baan ka fiiriyay si guud horta intaan saddexda u gudbin adeerna uu ku noqon doonaa nolosha aadamaha oo dhan waa nolosha qoysku waa bustaanta ama beerta aadamuhu uu ka soo beero qof kasto hadda idinka mid ah halkan fadhiyo oo qurux badan oo dabeecad wanaagsan oo aan la ashqaraarno quruxdan iyo dabeecaddan iyo milgahan public kuma sameeyo dadweynuhu kuma sameeyo ta'athar iyo saameyn way kugu yeelan karayaan laakiin kuma sameeyo maxaa ku sameeyay hooyo iyo aabbo wanaagsan ba ku soo gudbay iyo intii kale oo saameyn ina gulaama qofkii abtiga la koro ama adeerka la abayida la koro adigu waalidkii yaa ku soo gudbay marka waxay ku tusinaysaa wanaaga bulshadu waxay ka soo bilaabataa kuna dhamaataa qoyska ninka soo qurux badan qoyskiisa quruxda oo soo yeelay markaas baan anagu ka faa'iideysanaa wax na taraysa oo publicii ama dadweynihii ay fariintaada ama risaaladaada ama wanaagaaga ama hogaamintaada wax walba aad leedahay marka aan bay ku qaabilayaan marka gurigu waa sirriyada nolosha ama qoysku marka runtii aad baan adeer uga mahadcelinaynaa inuu meel runtii aad iyo aad muhiim u ah oo ka abaaray sidoo kale waxaan rabnaa inta aanan dhalinyarada u gudbin iyadana inuu wax ka taabto yani hogaaminta islaamka iyo qoyska maxaa ka dhexe waxaa laynoo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam yani boosaska waaweyn looma dirsan jirin inaan usra lahayn aan qoys lahayn oo aan reer hogaamiyada dadweyne ma noqon karay ninku gurigaagu waa jamhuuriyad yar waa small republic adigu aad leedahay madaxweyne ka ama gabadhu hadeerta madaxweynaha ka ra'iisul wasaaraha ka adigu saad wada hogaaminaysaan yani xukunka iyo hogaaminta iyo toosnaanta iyo istiqaamadu maxay ka soo bilaabataa sida aad ubadkaaga iyo qoyskaaga iyo islaantaada aad u soo hagaajisay markaas baa la oran karaa ninkan qaryadii waa hagaajin karaya ama beledkii guud iyo dalkii iyo qofkanu macna ugu fadhiya rajayna adeeruna ku noqdo inta aan adeeru gudbin dhalinyaradana commentigooda aan u dambeyn anigu saddex baan ka fiiriyay buug markaad akhrinaysid buugga magaciisa iyo waxa gudihiisa ku jira meesleeyin waa la fiiriyaa marka buug review marka la sameynayo inaad buug aad dib u eegis ku samayso ama buugga dhaliishiisa soo saarto ama wanaagiisa soo saarto halkaa waxaa ku qoran hilinka guurdoonka iyo hagaha qoyska oo ah dhabbada ninka guurdoonka ama gabadha Soomaaliyeed ee guurmeerka ah ama wiilka guurmeerka ah dhabbada uu marayo dariiq mujaawahada meesha directionka uu raacay runtii ninkii maanta diyaar ah inuu guursado ama wiilkiisa u guuriyo ama gabadhii inay guursataa inankeeda u guuriso hilin buu ka helaya haye hilinkii waad heshay waad hayaantay hilinkii baad heshay dhabbaad raacday gabadhii baad soo heshay ama wiilkii baad soo heshay wiilkii ama gabadhii isa soo guursaday hagid bay u baahan ubadkii baa la wada maamulaya ayagii baa ismaamulaya hagiddiina meesha way ku jirtaa marka magaca iyo buuggu waa is yeesha muqadamooyin baa ka bixiyo markaas daawacada loo diray saas ku daawaco qodobka koowaad runtii taasoo ahaa maxay ahayd qodobka labaad luuqadda buug marka la akhrinayo dadku isku level akhriska uma joogan qof baa bilow ah oo markaas akhrisku bilow u yahay nin baa maahir ku ah inuu wax akhriyo oo sida buug loo akhriyo iyo sida loo kala dhigdhigo runtii ku ah ninba meel bay u joogtaa marka luuqadda uu buugga ku gudbo xataa dadka la hadlaya luuqadda ay doortaan yay ku xiran tahay fariintooda in aadamuhu adeer hadda inuu inta idin soo hor fariisto uu idinla hadla sidii dagaatiirtii iyo dad aad majaallo waaweyn ku jira iyo inuu sidii dhalinyaro yaryar oo wiilashiisii ka mida oo wacyi ahaan idinla hadlo hadda waxay ku xiran tahay inuu idin yaqaano marka luuqadda buugga runtii waa luuqad aad iyo aad qof walba fahmi karayo af Soomaaliga akhrin kara oo xiise iyo dhadhan u yeelaysa erayo badawi waaweyn oo ayna fahmi karayn kuma jiraan luuqadda qalaadna aad uga badna luuqad Soomaaliya oo baraxla oo tacliimi fiican uu ka muuqdo oo qof kasta oo waxa weeye Soomaaliga akhrin karaya uu fahmi iyo ku qoran tahay
qodobka saddexaad aan ka fiiriyo waxay ahayd amla amlaynta waxa loo yaqaanaa internal design qaab gudeedka buugga ciwaanba ciwaanka uu kugu xirayo maqaalba maqaalka uu kugu xirayo maanta marka chapterka koowaad akhriso waxaad jacayl iyo maxabba u qabaysaa inaad u gudubto chapterka ku xiga waad iga aragti duwanaanka dhan raggi buugga soo akhriyay laakiin anigu markii aan samaynayay tala bixinta in la daabaco amlaynta ayay ciwaanba ciwaan sida ugu xigo warqadda buugga oo runtii warqad aad u tayo fiican ku qoran oo hadhow markii u dabco qof inuu gato dhiiri gelinaysa maxaa wacay dadku araggoodu isku mid ma aha jacaylkoodu warqadda qof walba tayada uu jecel yahay isku mid maaha marka book review lagu samaynayo meelaha la eega bay ka mid tahay inaad qaab dhismeedka gudaha buugga aad eegto marka runtii buugga qaab dhismeedkiisuna aad buu u macaan oo waa musasala waa ciwaan يعني ciwaan ciwaanka kala kugu xirayo kan markaa dhamayso waxaad u xiisa qabtaa chapterka xiga inaad fudo dadka ma daawan doono oo bandhiga nagala soo qayb gali doonana waxaan leenahay su'aal kasta aad isweydiin lahayd jawaabteeda ayaan ku haynaa inta aanan u gudbin dhalinyarada oo aan jeclahay runtii commenti fiican inay ka hayaan buugga waxaan rabaa adeer inaan ku celiyo hogaaminta ummadda iyo qoysnimada maxaa ka